maayir ku-xigeenka degmada Burco ay weheliyaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa xadhiga ka jiray sida warbaahinta qaarkood ay sheegeen wado aan baabuurtu mari jirin tan iyo wixii ka dambeeyay dagaaladii sokeeye balse maayir ku-xigeenka magaalada Burco ayaa waxa uu sheegay in hay'ad maalgelisay wadadan oo aan wax dayactir weyn ka muuqanin wadada laamiga ayaa waxaad moodaa marka aad dul istaagto mid ay roobabkii iyo biyihii maraya ay soo saareen dhagaxantii lagu dhisay waqti hore wadadan uu sheegay inuu maayir ku-xigeenku xadhiga ka jaray waxaan badanaaba aan isticmaali jirin dadka lugta baabuurtuna ay ku adagtay in isticmaalaan asi kastaba haatee waxaad moodaa in mas-uuliyiinta dowladda hoose iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee bulshadu soo dooratay in ay ku heshiiyeen in bulshadii soo dooratay ay indhaha qabtaan waxaan macquul ahayn ay miidiyaha ka sheegaan waxaan u sheegayaa bulshada gobolka Togdheer khaasatan bulshada ku nool magaalada Burco in wadada ay sheegayso dowladda hoose inay xadhiga ka jirta ay tahay mid aan dayactir sida muuqda aan ka muuqanin mar aan isku dayay in aan xaafadaha ku agdhow wadadaasna waxa ka weydiiyo dhismaha wadadan laamiga ayaa waxay ii sheegeen in ay dhagaxaan lagu shubay roobabkii ka daay magaalada Burco ka hor wadadaas balse aan wax kale laga qaban wadadan ayaa waxa kaaga muuqda marka aad daawato sawiradan iyo muuqaaladan in aan wax weyn oo muuqda laga qabanin oo ay dhagaxaantii soo taagtaagan yihiin halisna ay ku tahay gaadiidka iyo dadka maraya tan iyo waqtigii la soo doortay maayirkii ku-xigeenkiisa degmada Burco ayaa waxa kasii daraya bilicda magaalada Burco waxaad arkaysaa mararka qaarka aad dhex martay magaalada Burco qashin aad u xad dhaaf oo shawaaricda yaala iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Burco qaarkood xiran yihiin iyo magaalada Burco aan habeenkii wax leeyahay lahayn Cabdullah Xaniif